بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الشرفت له نود ينحرس كركي نها هاته الله سبحانه وتعالى نوحا ويدي سنين أيام خير بدن بالوجرا ين الله سبحانه وتعالى دنبغينا يكي ولنتين بودافو وانا بهذا الليبن in Deutschland وإذن الله عيد وناكسن عيدا إلهي سبحانه وتعالى عافماد هينو قارسيه waxay inoo joogtay 105 bay inoo joogtay caawana waxaynu ka bilaabaynaa 106 su-aasheenna caawa koowaad ee ugu horreysa waxaa laynala weydiinaya oo layna leeyahay halkeebaad meesha baalkan lagu wareego ama crossinka lagu wareego ee baabuurtu ay ku wareegaan ay isku dhaafaan iyo isgoyska isagu markaa afaridoodka aan ahayn ee ah saddexda maxaad markaad labadaa aad maraysa ama aad goynaysid aad iyo aad isaga ilaalinaysaa halkan markaa dhowr qaybood baa lagu kala siiyey waxaa lagu yidhi wareegga gaadhigu ku wareegto iyo isgoyska saddex qayboodka ah waxay noqon karaan before ghashtig sign meel sharci u yaallo sharcigaasoo lagu tilmaamo links for ghasht midigta ayaa waxay ka xaq leedahay bidixda ka xaq leh haddii aad meel isgoysa aad ku timaadid wax calaamadoo markaa ku siinayo forfaydna ayna ku oolin macnaheedu waxay noqonaysaa gaadhiga midigta taagan ayaa ka xaq leh gaadhiga bidixda taagan ama maraya marka qofka bidixda jooga wuxuu iska eegayaa ka midigtuna wuxuu iska sii eegayaa kiisa kale ee midigtiisa sii ah saasay isu daba wareegaysaa sharcigaasaana ka shaqaynaya haddii markaa aad croyson aad maraysid meesha baabuurtu ay ku wareegaan ama wareegga gaadhigaba dheh iyaduna sharci bay leedahay oo sharcigaas waxa weeye marba gaadhiga gudaha ku jira ayaa xaq leh su-aashaasina way inoo iman doontaa haddii markaa gaadhi uu gudaha ku dhex jiro uu ku dhex wareegayo adiguna aad ugu soo gasho adigaa khaladka iska leh 100% gaadhi mar hadduu soo galo gaadhi kalena ma soo geli karo waa inaad sugtid weeye markaa inta gaadhigaasi ka baxayo sidaasayna shuruucdooda ay kala yihiin marka haddii aad timaadid meesha iyada ah wareegga gaadhiga ama isgoyska aad timaadid iskooskaasi ishmaal ha ahaado ha dhuubnaado oo meel cidhiidhi ha ahaato ama meel markaas si wanaagsan aan loo dhisin ama jidcadde ama magaranaysaa waddo jajabanba ha ahaatee kee doontaba ahaatee sharcigaasaa ka shaqaynaya markaa adigu hadday yar tahay iyo haddii ay markaa jajaban tahay toona kuma khuseeyaan waxaa ku khuseeya sharcigaa aynu sharaxnay isqashtig 707 qoral ahaan baa iminka lagugu sheegay isla markiiba waxaa lagugu daba dhigay sawir arrinta ayadaa ka warramaya aynu sharaxaynay halkani waa isgoys waddaa toostay waddanoo kale la dhexday ka martay laba waddaa iska roosay gaadhiga iminka bidixda taagan ee casaanka ah wax shaqo oonan u ku leeyahay ma jirto ka fikiri maayo arrimihiisa allaahumma hadduu intuu soo maqiiqo oon markaa aan badbaadinayo oon ka istaaga ma sheegin laakiin sharci ahaan marka la yidhaahdo shaqo iskuma lihin aniga bidixdeedu xigaa isaguna waxaan ka xigaa midigtiisa marka anuu iska ka fiirinayaa anna waxaan iska fiirinayaa ka halkan ka imanaya meeshanna sidaan markii dhawaad sheegayay wax calaamad ah oo forfayda ku taallaa ma jirto marka macnaheedu waxa weeye mar calaamad forfeedaba haddayna ku oolin aynu hore u soo marnay iyadoo huruuda iyadoo nooc kalena ay noo iman doonto gaadhigaas midigta ka imanaya ayaa aniga iga leh haddii markaa anaan iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay aynu eegno maxaa waxaa lagu yidhi faarum muusan sii hiya bisondaqas for sishtig sign maxaad halkan aad iyo aad ugu taxadaraysaa weeye bayl sababtoo ah waxa weeye bremsen waxa weeye bremselka ama breegyadaadu waxa weeye khatartooda ayaa kor ah sababtuna waxa weeye dhulka qoyan waad aragtaa dhulka qoyan buu muujinayaa
talabaad weil Fahrzeug von rechts kommen konnte gaari inuu midigta ka iman karo marka gaariga midigta ka yimaada wuxuu u baahan yahay inaad aad iyo aad isaga ilaaliso weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat gaariga bidixda ka imanaya forfeit iskala weeye marka macquul ma hawanigii sida sharaxayaba gaariga bidixda ka imanaya shaqo iskuma lihin is richtig Sie wollen aus einer Reihe parkende Fahrzeuge in den fließenden Verkehr anfahren parking baad ku jirtay parkingkaasoo ah welibana nooca waddada teedkeeda waddada saa ugu teedsan waxaanad u baahan tahay markaa inaad ka soo baxdid parkingka si aad waddadii markaa aad dhinaceeda ku parkingtay aad ugu biirto adiga markaa xaggaaga dambe ama gadaashaada waxaa ku baarkiman ama yaalla ama dhigtayba markaaba dheh waad aragteenoo elkaabeeyadu waddooyinka dhexdeeda iska dhigtaan halkaas ay alaabta ku dejiyaan maadaama meel qaada ayna jirin elkaabee baa adiga xaggaaga dambe taagan marka adigu arrintaas iyada ah ama situaatyoonka xaaladaas ah sidee baad uga falcelinaysaa ayaa lagu yidhi weyan gaadhigii adiga markaa baabuurtii kaa dambaysay elkaabeegu inuu kaa qariyo ayaa suurtagal ah markaa aad baabuurtii kaa dambaysay aad arki weydo aye talabaad baabuurtii ka dambaysay elkaabeega ee islahaa markaa elkaabeegana aad dhinaca ka martaan ood baastaan inay adigiina ku arki waayaan ood is arki weydaan macnaha guud waxa weeye waad is arki weydeen labadiinni baa laydin kala qariyey marna adigaa lagaa qariyey marna iyagii baa lagaa qariyey marka iskhishtig labada arrimood ayay keeni kartaa haddii gaadhi elkaabeey uu isku kaa gudbo hadhow markuu qofku ilbaxe ee gacanta u fadhiisata ee cabsidan faraha badan le ma garanaysayo ee wadato cuseybku wato ay ka baado dee waxa weeye markaa dareemihiisa iyo waxyaabihiisa qofku meel fog buu wax ka saadaalin karaa laakiin qofku intuu cusub yahay waxa weeye baabuurkanba ma garanaysayey ma dhaafsiisna marka inta badanba waxaan ku yidhahdaa dadka war markaad cusubtahay qofna kula socdo xaalado noocaasoo kale inay kugu yimaadaan ka kula socda degdheh oo iga ee ku dha baabuurta soo soco ha ku yidhahda markaa ceeb maaha inta badanna dadkeennan soomaalida waxaan ceeb hayn baan ceeb nuqaanaa wixii ceebta ahaydna waxa weeye waa layska bannaystay marka inaad tidhaahdo qof gaadhiga kula saaran deg oo iga fiiri baabuurta xagga dambe ka dambeeya meeshan iga qaranaya elkaabeeguna iga qaranayo ceeb ku jirtaa ma jirto haba yaraatee naftaadina waad badbaadisay nafihii kalena waad badbaadisay baabuurkaagina waad badbaadisay baabuurtii kalena waad badbaadisay laakiin barta ayadaa haddaad shil ku gasho oo laguu diro ma garanaysayey iskuulkii laysu diri jiray mar baan sharixi doonaa insha allah bidni alkariim haddii markaa adigu khaladka aad yeelatana brobaseydki lagugu kordhiyo qofkaasi markaa intaasoo dhan buu kaa badbaadin lahaa marka waxaan leenahay mar kasta oad u baahan tahay caawimaadda qofka kula socda weydiiso waanaad aragteen oo elkaabeeyadu inta badan markay meel ka soo baxayaan ama meel ku baarkimayaan waad aragteen qof baa u istaagan baabuurtu ka joojiya ama baabuurta maaragtay dhismaha joogso baabuurtii waddadu kala joojiyaa kadib ayuu soo galaa marka adigu ma baahnid baabuurta waddada in lagaa joojiyo laakiin waxaad u baahantay keliya in laguu seenyaaleeyo oo baabuurta lagaa eego haddii markaa baabuurtu ay ku jirtana lagu yidhahdo ka joog haddii kalena qofkan uu ku yidhahdo soo soco marka waxaan leenahay waxaan ceeb ahayn iyo inaan ceeb u arkin su-aasheenna 109aad Sie nähern sich eine Schule iskuul baad u soo dhowaatay waad socotay iskuul baad u soo dhowaatay iskuulkaas oo ciyaal ay ka soo dareereen maxaad markaa iyadaa iska ilaalinaysaa das Kind ciyaalkii sich immer richtig verhalten si wanaagsan bay uga istaagayaan baabuurtii macquul may kula tahay haye wan sikin baan ku siiyey jawaabtaada ugu horraysa waxaan qiyaasaya inay noqon doonto maya macquul ma aha laakiin waxa weeye ciyaalkii baaskiilkii bay soo kaxaysan doonaan waddadiina waxay u soo geli doonaan maxay unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren waa macquul inay iskaga soo tuuraanba waddadii ciyaalka baaskiilkii inay markaa is soo buurtaan oo is soo riixaanna iyaduna waa macquul
su'aaluhuna inta badan logic ay u badan yihiin aniguna inta badan waxaan idinku kordhiyaa waxa weeye waa khibrad iyo waxaan idin dheerahay keliya weeye ma garanaysaa baabuurkan idinkaga horreeyey qaar badan oo idinkeeda ka mid waa laga yaabaa inay doojka ama jarmalka igaga xariifsan yihiin laakiin waxaan idiin soo gudbinayaa waxa weeye khibrad badan oo waqti badan ay kaa qaadan lahayd inaad ma garanaysaa aad heshid waxaana kugula talinayaa haddii aad ka hesho qaabka aan wax u sharaxayo walaashaada dhibaataysan ama walaalkaaga ku dhibaataysan fahamka leesonka inaad la sii sheergaraysid oo aad la sii wadaagtid worauf kann Warnblinklicht hinweisen yaa maxaad ka fahmaysaa ama ma garanaysaa warnblishka laga garanayaa marka la shito warnblinklichtiga waan sharaxnay waa israaca gaadhiga weeye baabuurta yaryar afar weeye laba indhooda hore iyo laba indhooda damba markula wada baxaya oo huruud ah baabuurta waaweynna way ka indha badan yihiin mooyaane waa isku mid uun marka maxaad halkaa ka fahmaysaa haddii aad gaadhi fareejooyinka israaca afartaba ridanaya aad aragtid auf einen Stau ama cidhiiri waddo ayaa dhacay waa sax baabuurtu markii saa aad u xiimaysid aad adigu baabuurtii ka horraysid kuwana ay ku daba socdaan adigu marka ugu horraysa aad aragtay waddadii inay soo xidhantay waa inaad shidaa warnblinklichtiga hadhow markay baabuur kale kusoo daba istaagto waad iska baktiinaysaa si gaadhigii adiga kaa dambeeya 160ka 170ka labada boqol ku socday uu u ogaado inaad waxaad aragtay uu yahay shil ama ishtaw aad aragtay uu kaaga joogsado haddii aad shidi weydid adiga waxa weeye halis baad ku jirtaa ama meesha waxa laga yaabaa inuu ka dhaco maxay shil ka dhaco kale waxaa laga yaabaa inay waddada basasku markay taagan yihiin waddaduna way sameeyaan isagu shul buus keliya halkan uu yidhi laakiin basoo dhan baa sameeya marka laga degayo by denen Kinder ein oder aussteigen basaska ciyaalka markay ka degayaan ama ay fuulayaan iyaguna waa shitaan basasoo dhan baa shita waad aragteen auf liegen gebliebene Fahrzeuge gaadhi waddada dhexdeeda taagan baabuurtu markay waddada ku kharaabaan ku xumaadaan ama ay wax kaleba ku dhacaan ama uu iskaba istaagaba autobaanka dhexdiisa uu daalo ama qof ma garanaysaa marka dan kale uu qabsanayo waa la shitaa israaca gaadhiga waad arkaysaa si baabuurta kale ay u arkaan es richtig waxaynu soo gaadhnay 111 waynu soo gaarnay waxaa lagu yidhi adiga hortaada vor ihnen will eine große Mandresche Mähdresche nach rechts abbiegen waa cagaftan weyn weeye beeraha lagu qodo ama beeraha jarta ee aadka u ballaadhan weeyaanta laga hadlayo was ist richtig baa lagu yidhi maxaa halkan saxa baashaa weyni cagafta dad kolay Soomaaliga cagafun baa la yidhahdaa ta wax qoda iyo ta beeraha iyo ta gurta wax oo dhan inagu cagaf u naqaanaa waxay samayn kartaa wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken marka ay leexanayso ay midig u leexanayso waxay u beeraysaa ama isu badinaysaa dhinaca bidixda si ay markaa gaadhigaa weyne u helo masaafo ama magaranaysaa saaxa uu ku kala leexan karo oo midigta ugu leexan karo elkaafeyguna waa sidaasi la eg weeye baabuurta waaweyn oo dhan waa inay bidix u bataan markay midigta u leexanayaan kadibna ay soo leexdaan horena waynu u sheegnay wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden tartiib buu u kaxayn doonaa ama u wadi doonaa marka uu leexanayo waa sax gaadhiga weyni waa inuu soo qaboojiyaa si uu gaadhiga u kantarooli karo baabuurka yar laftirkiisu xitaa waa saas adigoo boqol ku socdo haddaad goolad ku laabto dee waxa weeye waad ka baxaysaa waddadii ama waxa weye waxbaad galaafanaysaa laakiin mar kastoo aad leexanaysid waa inaad soo gaabisaa soo qaboojisaa gaadhigii waa sax weeye richtig waynoo akhtar bay noo noqotay sababtu macnaheeduna waxa weeye way saxsan tahay 112 sifaaqan hintan einem waa iyadii oo kale weeye waxaad daba socotaa maxay cagaf baad daba socotaa noocay doontaba haatee mid hookh iyada oo markaad jiidinaysa maxay balaadan anhenga bahal aad u dheer ama remote bahalka baabuurtan ay jiitaan cagafyadu jiitaan saamtaraladu ay jiitaan remote aad iyo aad u dheer bay jiidanaysaa remote dheer bay jiidaysaa maxaad markaa halkan yada anaa iska ilaalinaysaa weeye waxaa weeye iska ilaalinayaa
marka uu cagafcagaftaasi weyn welibana wadata bahalkaa dheer ay leexanayso waxaa ka dhici kara taylaa ka dhici kara biraa ka daadan karaa marka bira maadaamay ka daadan karaan maxay waxaa loo baahan yahay inaad iska ilaalisid talabaad waxa weeye marka ay ishaarada ridato ama ay magaranaysaay bilinkaha ay ridato u ridato dhinaca midigta ah waxaa dhici karta bahasha rimoorkan weyn uu jiidayo gaadhigii jiidayay inuu kaa qariyo gaadhigii jiidayay rimoorka inaad arki weydo ishaarada xagga u rito laakiin sida badan rimoorka iyo gaadhigu xarka la isugu xidhiiriyay leeyihiin labadoodaba ma garanaysaa wada arkaysa laakiin maadaama uu cagaf tahay beeralayna ay tahay waxa laga yaabaa xitaa inay ka kharaabsan yihiin marka bahalkii weynaaye la jiidayay waxaa laga yaabaa inuu kaa qariyo gaadhigii hore dhinacuu leexanayay ma garatay markaa markuu leexanaya inaad arki weydaa laga yaabaa waa sax isqashtig 113 aynu soo weynaysanno waa arrintii aynu sharaxayna weeye iminka haddii markaa aad ila socotay dareenkaaguna uu si fiican u joogo uma baahna inaan wax badan halkan kaaga sheego waa waddo isgoysa halkaa bas baa taagan baskaasi waxa weeye waddada marka la yidhaahdo lahaanshiyo isagaa kaala waa inaad iska ilaalisaa waa markaad tooska u toosaysa weeye laakiin iminka waad leexanaysaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay baska shaqo iskuma lihidin maadaamood leexanayso dhinacii kalaa kuu bannaan baabuurka kale ka imanayay ka bidixda waad ka yara fiirinaysaa un mooyaane isaga shaqo iskuma lihidin waa ka ishaaradan iminka dhacaysa ama bilinkahan iminka dhacaya ee aad arkaysaane halka ku yaalla ayaa inoo muujinaya inaan midig u leexanayno laakiin wax kalaa jira oon iminka kuusii sheegaya waa kuusii ishaafalataynaya baska waxaynu soo marnay ausstaagen inuu leeyahay dad ka soo dhaadhacaya iyo dad fuulaya waxa kaloo aynu hore u soo marnay baska dadka ka soo dhaadhacaya inay soo hormaraan daba maraanna macnaheedu waxa weeye waxaa iman kara dad baabuurka hormaraya oo waddada soo goynaya oo dhinac nimanka taagantaa u soo goynaya khatar bay ku sugan yihin dadkaas waxa kaloo dhici karoo nimanka kuusii sheegayaa basku maadaama waddadii dhinaca haadkaa uu xanibay gaadhi kale oo dhinaciisi u socday inuu baska intuu ka soo leexday is yidhaahdo baska halkan aad ka baasid maadaama uu basku taagan yahay arrimaha aynu isdhaanno oo keliya waxay tahay khibraddaasun baynu isu soo gudbinaynaa mit personan waa kan arrintaynu sheegaynay difaa baan ubakeeqan dad baski soo hormaraya oo waddada goynaya mit einem farisog das am bus vorbei fährt gaadhi baska soo baas maraynaya oo soo dhaafaya inuu yimaadaa dhici karto oo waddadaadii adiga soo galay marka haddaad istiraado baska shaqo iskuma lidin oo midigta sideeda ugu laab waxa weeye dee gaadhigaas baska soo baas marayn kara waa lacalla wey waxaynu ka hadlaynaa ayaad madaxa istaraysaan daas iish anigu oodaka qoysun haltan mus waa inaan istaagaa halkaa aan wax iska ega xaaladda aan endhendheeyaa waan wiideynayaa xaaladda isqishtig 114 sawirkii baynu soo weynaysanaynaa halkaa waxaynu ku aragnaa bruke waxaana yidhaahdaan ama buundo bridge ninba siduu u yaqaano waxaa halkaa taagan gaadhigaasi cagaf dabadeedna waa u eg tahay waxa kale u eg tahay gaadhi huruud oo noocan ma garanaysaa dhismayaasha iyo waxaan lagaga shaqeeyo alkaafee buu egyahay noocu doonaba ha ahaado waddaduna wataasaa marka isagii waxa weeye waddadiibuu ku jiraa afku la soo galay dhinacaygii haadkaygii wuu xidhay macnaheedu markaa waxay tahay gaadhigan wuu soo dhaqaaqi karaa haddii uu taagan yahayna waddadii dhinacaygii wuu baloogareeyey okay baqaymsa baqayt sign waa inaan usii diyaargaroobaa inaan breeg qabto haddaad usii diyaargarowdid waxa weeye soomaalidu inkastoo iska reero dagaal yihiin waxay yidhaahdaan budka ka aad baraad la'aanta kugu dhaca iyo ka aadan filayn baa naxdin badan oo dhib badan laakiin budka marka aad magaranaysaa filayso jirkaad isgelinaysaa waxa weeye dee wax badan ku yeeli maayo reero dagaal baynu iska nahay marka waa inaad bareega usii diyaargarowdaa xaalad waa inaad ku diyaargarowdaa marka gaadhigii ood soo qaboojisay eeg iminka ninkan gaadhigii wuu qaboojiyey muxuu gaadhsiiyey 30 buu gaadhsiiyey 30 macnaheeduna waxa weeye gaadhiga sida allaalay sida doontaad u kantarooli kartaa adaa ka adag kashfindika faminden inaan magaranaysaa surcadaydii ama orodkii aan ku socday xawaarihii aan yareeyo un famindet fayta faaqan buu ku yidhi halkaa waxba xawaarahagaa gaawin horena u soco marka macquul maaha adigu waad ka diidi lahayd haddii maskaxdaada ay shaqaynayso ishqishtig 115 baynu soo gaadhnay falilaahi alxamd ilaahay baa mahaddaa iska leh waynu soo weynaynaynaa
xaaladaynu qiimaynaynaa jawigaynu qiimaynaynaa jawi maliix hadduu noqdona waan ku sii daynaynaa jawi kharbaan hadduu noqdona waan ka istaagaynaa jawigu waa okay baaskiilkaa waynu dhaafnay waddadii kalenu yaro galna waan ka soo noqonnay waxaan rabnaa markaa iminka inaan u leexanno maxay qashti inaan u leexanno baskaas sidii kii hore oo kale weeye oo isaga wax shaqo aad isku leedihiin ma jirto mar walba ku xisaabtan su-aasha noocan oo kale haddii kuu timaaddo shaqo iskuma lehdin halkan laakiin maxaa socdaa nin suud xidhan baa socda laga yaabo inuu shaqo ka soo rawaxay ama uu ku socdo wax kalaan rabaa markaa inaan ku tuso haddana shay kalaa jira hadday maskaxdaada aad u shaqaynayso wakhti baan ku siinayaa bal ii sheeg ama qoraalka hoose igula wadaag shayga saddexaad ama labaad een u baahanahay inaan aadka uga taxadaraa waa maxay muraayahaadda midigta fiiri hadda fiiri maxaad aragtaa ii sheeg waxaad aragto haye wixii aad aragtay ma iminka wuu kaa lumay halkuu ku maqan yahay dee garabkaagu taagan yahay waa ninkii baaskiilka wata weeye haddaad kaaba aadan joojinooda adigu kaa istaagayaa ood saa ugu laabtid abuu baaskiil watow waxa weeye ambalaaskeedaay waxa weeye adiguna markaa adiga shulda ah qofna naftiisa inaad galaafataa laga yaaba marka waa inaad ku xisaabtantaa baaskiilku iyo dadka lugta socda mar walba waxa weeye aad bay muhiim u yihiin arrin kalaa rabaa kaloo saddexaad inaan ku tuso haddii iminka aynu toosi lahayn halkaa muxuu inaga siiyey calaamaddaas waxaa la yihahdaa forfight baa la yihahdaa waa calaamadda koowaad ee forfeitka iyadoo nooc kalena waynoo iman doontaa markeedin sharxi doonaa halkaana wuxuu kaa siiyey maxay forfeit kaluu kaa siiyey baskaas iminka isagu wuu istaagay sababtuu istaagay maad garanaysaa isaga adiga marka forfeit lagu siiyey isna stop buu haystaa wataa calaamaddii saddex geeskeeda saambuuska ahayd ee casayd ee stopta ahayd stop buu haystaa marka akhtum baan ujeedaa akhtum buu haystaa isagu oo ah iska ilaali haddaynu iminka toosi lahayn oo dhinacaa gaadhigaas u socdo aynu u socon lahayn forfeit baynu haysanay marka waanu socon lahayn baska oo midnaan joojinin laakiin iminka waan leexanaynaa marka baaskiilkii inagu dhinac jira iyo ninkaasoo isna waddada lugta sii gelin raba labadaa shay bay iminka formakin si meel kusii qora kusii xisaabtan aye adigu igala shaqee das transporters baa lagu yidhi gaadhiga transportka ee baska ah das fuskenga ninkaa lugaynaya iyo das khaadfaaqas iyo kii baaskiilka watay aye saddexda maan keli garayaa ii sheeg mise laba keliyaan keli garayaa keen ka qaadaa dee dabcan waad sheegay caqligaaga hadduu waxaan jeeda niyaddaadu hadday shaqaynayso ood soo jeedid ee baska shaqa isaga isuma lihin waan ka qaadayaa haddaan ku dhuftana khalad bay noqonaysaa isqashtig u fiirsa hadda ila soco waa inaad mar walba saa ula socotid ood waxa weeye su'aalaha aad caqligaagana ku kabtid weeye su'aalo qalaban keliya oo la xifdiya waxa matarayaan caqliga lagu kabayaa deetana markaas is ahaanaysaa baskaas wayna soo dhaafay gaadhiga aynu hor socdana shaqaba iskuma lihin aye baaskiil baa soo muuqday baaskiilka waxaa ka dambeeyey gaadhi laakiin gaadhigi muxuu sameeyey bilinkii buu samaystay bilinkaas wuxuu ii sheegayaa maxay inuu waddadayda uu soo geli doono soo maaha waa inaad ku xisaabtantaa marka haddaan anugu iska socday iminka xaq baan u leeyahay laakiin haddaan socdo oo ninka jaanis aan siin waayo khasaaro badan baa dhacaya marka waa inaan ka gaabiyaa maxay oo kashfindikaadkayga aan soo gaabiyaa soo maaha ama aan iska ilaaliyaaba dee waxaa lagu yidhi waxaanoo dhan baa laguu soo taxay the endge commande bekavevid yets wuxuu samayn doonaa wuxuu iska diidi doonaa ka dhag adeegi doonaa xaaladda ishtiqaasa mintahana wuu usoo gudbi doonaa oo dhankayga ah isqashtig saas ayay sax ku tahay marka mar walba adigu ta xun ama ta dhibka badan labaad ku tashanaysaa ta wanaagsan mar walba waa lagugu gaadayaa dayib 117 baynu soo gaarnay calaamaddaas waxay tilmaamaysaa baaskiilka halkaa maraya inuu waddo baaskiil meesha ku taallo taas sarena waxay tilmaamaysaa mar haddii midna la madoobeeyey midna la caseeyey calaamadduna casaan tahay meeshan inay isku baasitaanku ay foodbuutin tahay waxa kaloo inoo muujinaya liidka caddaanka ee isku xidhan kan ina soo xigaa iminka uu googa'an yahay waa la isku baasi karaa laakiin halkaa marka la gaadho waa foodbuutin weeye horena waaynu sheegnay waa inaad labadaa shayba formakin niyadda ku hay dayib halkan maxaa ka dhici kara alayaa lagu yidhi oo magaraysaa khalad ah oo dhici kara halkan maxay tahay waxaa dhici kara waxa weeye van deeqaadfaaqa ilama saxsana taasi van ish anigu marka aan
socodkayga aan kantarooli kari waayo ama socod maxaa la odhan jirayey xawaarahayga intaan kantaroolo aan tartiib aan u socon waayo markaan anigu xawaarahayga kantarooli waayo weye aan socodkayga soo gaabin waayo marka baaskiilku deeqaad faaqa af meine Fahrbahn wechselt markuu xaggayga usoo tallaabo weeye dhinacayga usoo gudbo ist richtig labadaasiba waa sax su-aasheenna 118aad iyo caawa waynu eegaynaa halkaa waxa ugu horreeya lagu siiyey waa maxay waa forfait baa lagu siiyey waxaan ugu celcelinayaa mar kasta inaad niyadda ku haysid oo calaamadda aad baratid forfait baa la yidhahdaa adiga ayaa waddada iska leh saa doontaad ugu dhex haragoon kartaa laakiin maca daalika adigoo nafaha dadka kalena ilaalinaya haddii lagu soo boobo waa inaad u sii daysid horaan soo dhigannay waddada imika way noo hagaagsan tahay waynu iska soconnaa forfait kale ayna siiyey forfait waxaad leedahay markaad toosaysa keliya waan sheegay midig baan rabaa inaan u leexanno aye halkaa dhinacaa markaad maxaad ka aragtay kusoo yar celiyo in yar kusoo yar celiyo halkaa midigta maxaad ka aragtay baaskiilkii baynu ka aragnay lugihiisii lugtii dambe welibana okay waan soconnay baaskiilkii ma waynaga qarsoomay inagu inala gudboon yahay baaskiilkii anna maxaan rabaa inaan u leexdo Rechtseite tanna waxay noo tilmaamaysaa waddadanna ku hadhow ku xisaabtan niyadda ku hay waxaan wax badan idinkugu sheegaya waxa weeye hadhow inaadan aydan magaranaysaayey ay idinka hoos bixin calaamadda haddaad aragtid waa Einbahnstraße la yidhahdo waa hal waddo keliya wey baabuur kaa hor imanaya iminkaad ku xisaabtami doontaa ma jirto mid isagu dee farrugtiyo waa shay ma sheegin dayib khatarta keliya markaa iminka ina haysataa waa maxay waa baaskiilka weeye bas su-aashii saasaynu uga jawaabnayba baaskiilka keliya ayaa hadda wax khatara meesha yaallaan fooq musan sii hiya beim recht abbiegen achten maxaad halkan iska ilaalinaysaa markaad midigta u leexanaysid muutaqaadkaas isagu meesha kuma jiro auf dem Gegenverkehr baabuurta iga hor iman doontaa maba jiro baabuur kaa hor iman doona waayo maxaynu tilmaamnay fallaadhii aynu kuu sheegay buluugga heda meesha ku qornayd haddaad xitaa fallaadha gudaheeda aad akhrid waxa ku qoran Einbahnstraße ku qoran waa hal waddo waa hal had iyaduna ma jirto auf den Radfahrer kii baaskiilka watay ist richtig meela socotaa hadda dhegayste allah ku barakeeyo indhahaaga aad u fur maskaxdaadana aad u fur cabsida badanna iska ilaali waad samayn kartaa waxaan meesha laguu sheegaya lagu leeyahay su'aalahanna way badan yihiin waa lagu yara magaranaysaayey waa lagu yara farsamaynaya wixin baa laisugu kaya dhex dadaadinayaa haddaad isku dhex daadato markaa dee waxaasaad ku dhex daadan doontaa arrintii iminka aynu ka hadlayna waa tan maxaa dhacay waxaa dhacay khalad aad iyo aad u weyn baa dhacay gaadhigaasi isagu wuu leexanayay elkaafeegu halkaasuu galay kollay dee waddadii xaggiisii hore iyo wuu iska elaalayey waxaa dhan wuu iska egtay jaanis buuna helay wuu laabtay laakiin gaadhiga cas muxuu sameeyey khalad buu sameeyey okay gaadhiga cas waxaa ka sii horreeyana waa maxay halkaa hoosaad ka arki kartaa waddadiisu ma ogdsay tahay marka iminkaana haddaan ismaqiiqo aan ka dabagalo dee waxaa laga yaabaa isagiioo meesha taagan gaadhigan intuu iga qariyo oo hore u yara socday inaan ku dhaca laga yaaba marka halkan maxaa la iiga baahan yahay marka xaaladdu sidan oo kale tahay dee waxa weeye waa arrin fudud waan istaagayaa wax kalaa jira xal kale ma leh waan istaagayaa laakiin ismaqiiqa iyo socodka dheeraynta iyo waxaasi waxba ma taraan khasaaro unbay keenaan inaad ismaqiiqdo ama orod fara badan aad ku socoto ama aad istiraado xariif baatay gaadhigaa ka dabagal waxaasoo dhan khatar bay keenayaan marka khataro oo dhan ilaahay baa gacanta ku haya laakiin inagu waan is ilaalinaynaa sharcigana waynu ilaalinaynaa nin darawalintii hore ee soomaaliyeed ah waxaa laga sheegay inuu yidhi ninkii fayf igu dhaafaa birimaan ku dhaafaa buu yidhi macnaheeduna wuxuu yahay gaadhigu markuu fayf igu dhaafo is soo maqiiqo hadhow isagoo gaadhigii qallimay oo lugaha kor u taagay baan anigoo birimo ku socda oo gaadhiguna ram 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 baabuurta wayn saas yidhahdaa ninkii garanaye ayaan dhaafaa buu yidhi oo saa aayar dee magaranaysa taayarka u rogaya marka haddaad fayf ku socotay iyo haddii kaleba waxa weeye wax macno la kuusoo kordhin mayso waxay soomaaliduna ku maamahdaan nabad qabe ayaa dheereeya inta badan oo fiirso gaadhi waxaad arkaysaa intuu kusoo maqiiqay kusoo dhaafay ishaarada kaa horraysu taagan yahay war gaadhigan gaadhigii soo dhaafiyey muu ahayn halka soo taagan waa isagii dayib waynu imanaynaa sie wollten sie sich wie
wie sollten Sie sich verhalten sidee baad halkan u istaagaysaa ama halkan maxaad ka taxadaraysaa waxa kale oo dhan inaan akhriyo uma baahni ich halte an waan istaagaya ya ich halte an halkani waa hal ficil oo kaliya weeye waa taqaanaan an haltan baa la yidhahdaa laakiin iminka marka ay magaranaysa ishtu ay soo gasho haltaa la soo hormarayaa antana waa la dambaysiinayaa waa wixii magaranaysaa biyaynista aynu ku dabaqnay weeye markaasay doontaba ato ish halte an weeye waan istaagayaa isqashtig way dhammaatay marka baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayr galabta ama caawa ama subaxa ama xilligeed doontaba kuwa ahaata walaalkayow ama walaashayay intaas ayaan kusoo gabagabeeyey waxaynu u gelaynaa barnaamijkeennii ahaa su'aalaha walaal baa wuxuuna soo weydiiyey uu leeyahay walaal su'aalaha ma arkayo ee soo dhoweysi aan u arkay ayuu ii soo qoray marka waxaan leeyahay cajaladii labaad iyo tii koowaad haddayna ahayn oo wixii ka dambeeyey ay yihiin su'aaluhu way wada muuqdaan walaalkayow ama walaashayay qofkaasi waxaad u baahan tahay haddii aad arki weydaba cilladdu adiga kugu timid waxaan kugula talinayaa inaad tv ka daawato ama kombyuutar aad ka daawato haddii labadaasba ay kuu saamixi weydo moobeelka sida dhararka ha uga daawan ee moobeelkaaga ballaca ka dhig waxoo dhanna way kuu soo dhowaanayaan insha allahu biidnillahi alkariim haddaba taladeennii ayaynu maanta u gelaynaa ay ahayd nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam khayru nnaasi anfacahum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan ka dadka ugu manfaca badan leh noqo walaal qof dadka manfac u leh noqo ummadda mid caawiyo noqo haddii aad mid qof caawisid adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku caawinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku caawinaya bulshaduna waxay noqonaysaa ama bulshadeenna soomaaliyeedna waxay noqonaysaa ummad aan u baahan dadka kale oo iyaga dhexdooda iscaawiya kooda luuqadda yaqaana walaalkiisa kale ama walaashiisa kale luuqadda aqoon ha caawiyo ha u turjumo anigu waan bartay wakhti baan ku bixiyey waan u kallahay waxaasi waa dadka maangaabka ah hadalladooda weeye inuu qofku waxa ku hadla ma aha adiga ilaahay baa kuu fududeeyey walaalkaa ama walaashaana wuxuu taagan tahay shalay meeshii aad taagnayd bay taagan tahay marxaladdu marka maalinba soomaalida waxay tidhahdaa geed walba in gubtaa hoos taalla qofka hadduu b-ins iyo b-tisfay qaato xaalad uuna garanayn baa jirta ka a-insta haysta xaalad uuna garanayn baa jirta ka magaranaysa c-inskaas wuxuuna garanayn baa jirta fooqa kullu dii cilmin caliim baa ilaahay subxana wataala qof kasta oo wax yaqaana mid kasta oo wax yaqaanaa kasii sarreeya qof adduunka la odhan karo hebel waxaas wuu laabay ama heblaayo waxaas way laabto way gebagabaysay adduunka ma jiraan marka walaal baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayr aynu iscaawinno ilaahay subxaana wa tacaala dartiisana aynu isku caawinno bulshadeenna soomaaliyeedna markaasay noqonaysaa bulsho manfac leh qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo siyaasadda iyo waxyaabaha aan nafta inoo lahayn ee magaranaysaa aynu ku baabaanayna aynu iska dayno intii wada degan iyagaa wax isku ah idinkaa wax isku ah labada jaarka aba wax isku ah labada magaalo wada degan ba wax isku ah ka adiga adeerkaa dhalay aan jarmalka kula joogin ama aan magaranaysaa jarmalkaba kula degano magaaladaada aan deganayn wuxuuna kuu qaban karin buu qofkan kale ee soomaaliga ah aan hooyadaan aan dhalin aabahaan dhalin adeerkaan dhalin ayuu kuu qaban karaa marka idinka ayaa ishuran jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu